بونسا وهيد مهمة شغاديدuna muhiim tahay anigu bilowgeedii dadkii ka soo shaqeeyay waan kamid ahay oo 2007 2008 xilligii BDRC gardaadinaysay oo aysan saboolka ahayn sida uu Faysal sheegay bilowgii dambe ku adkaatay dadkii la soo shaqeeyay waan kamid ahaa hawl fadaas dad badan way isaga dameeyeen waana hay'ad loo asaasay inay dawladda muraayad u noqoto la isku fiiriyo ay saxdo ay la taliso ay u digto ay arrimaha muhiimka ah issues ka jira ay miiska saarto weeye hawl adagna way soo martay hawshii ugu adkayd oo haddaan ka soo wada shaqeynay waxa kamid ah runtii arrimihii doorashooyinka oo meel ciriiriya laga soo saarayay ugu ay qayb weyn ka qaateen Buusa ay ka qaadatay aad baan taa ugu mahadcelinayaa runtii gudoomiyanimadii Faysal iyo hawsha uu ka qaatay nin wuxuu ahaa u qareema oo dooda afkaarta jeexa meel shay gashaba gala si weyn ula shaqeeyay guddiga doorashada hawsha kala dhaliyay aad baan uga mahadcelinayaa waxaan soo dhaweynayaa guddoonka cusub oo laba nin oo culus oo isbuuxinaya oo xaq farsamo iyo xaq dhaqan aan qabo inay ay hawsha ka sii wadayaan oo Faysal iyo Cabdiraxmaan hawsha culus oo u taala waa jecel lahay cid walba inay la shaqeyso gacan la siiyo hay'adaha caalamiga ay gacan siiyaan doorkoodina ay qaataan markii ay nolol baahan yahay dawladda in muraad la hor keeno markii loo baahan yahay la shaqeeyo dhinac walba waa soo dhaweynaynaa marka khayr baan u rajeynayaa guul baan u rajeynayaa moogta macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga kontada dhigaal ee bangiga Salaam